إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريستي جنها كورابية وحمانت مقالة برعو أسقرا لوغو سميه حاج عثمان عبد عود وكما قعديرا بڑا إسلام مركاسنا كميدها وضياشي دورك مهمكا كلها نبادينتي إيه هشيسينتي سوماليلان إيبا نحريستي ساهو قديق مرحومكا ياسدو كاليتو وحاو كميدها قناحسة دواوين رير سوماليلان أسكن قراني مقالة برعو لوغو سميين وحاكسو قيبقلي وزيرك وسارد دانيردي عيارها سوماليلان قدوميها قبل كتوغدر maarku xigeenka degmada Burco iyo bulsho aad u tiro badan waxaana markii aaskaas uu soo idlaaday halkaas Ilaahay uga bariyay marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland uu samiriyay iimaanka siiyo maanta aynu sameynay Xaaji Ismaan Cawad oo ahaa tiirarkii ugu weynaa ee Soomaaliland ama wadamada Islaamka ama Soomaaliba ah nin weyn oo runtii ku leh taariikh islaamnimo iyo mid akhlaaqeed iyo mid Burco Usmaan wuxuu hana qaaday isagoo 16 jir ah waxaanu furay hoteelkii ugu horeeyay ka furay jigjiga ayuu ka furay isagoo 24 jir ah dub ayuu uga soo laabtay wuxuu ku soo noqday magaalada 1962 ayuu Usmaan ka sameeyay jigjiga dub ayuu u soo laabtay 1944 Burco ayuu yimi dub ugu soo laabtay hotel ayuu ka furay إنا لله وإنا إليه راجعون عثمان عود محمود برابرة إلهي هون حريستو لما أنتين بإرجين ونهاي وما أنت إننا نولو إلهي وحين أقبرينا جنة الفردوس إنه جيو عثمان عود محمود سما فلكيسي يوم حسكرسكيسي لما سوكو قبل كوكاليا وما أنت أي تيسي نقطي مرحون مقعدير برابرة عثمان حاج عود وكما قعدير برابرة مرحومك waxay leenahay Allah u naxariisto kullu nafsin daa'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurahum faman suhsiha 'anil nar wa udkhila al janna faqad faz Xaaji Ismaan Cawad oo lagu naanaysi jiray Xaaji Ismaan Barabara oo kamid ahaa tiirarkii waaweyn ee reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Barabara ama Xaaji Ismaan Cawad waa nin reer Soomaaliland oo wada garanayso taariikh badan dalkan ku leh gaar ahaan gobolka Togdheer ahaa ragii dhalinyaranimada ku soo galay ee ganacsatada ka ahaa ee nabadeynta ka qayb qaatay ee dagaalkii dib u xoreynta ka qayb qaatay Ismaan Cawad Barabara loo yaqaanay waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga u waasiyo jannada firdawsi geeyo aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo taasida ay soo diray iyo madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumadda waxaanu leenahay Ilaahay ha u ballaariyo qabriga Ilaahay ha u nuuro Xaaji Ismaan wuxuu ahaa taariikhdiisa meel walba laga akhriyaa ninka cimriga dheer Ilaahay siiyay cibaadada siiyay camalka wanaagsan siiyay xooggiisa ku shaqaysanayay maanta waxaanu joognaa aaskii marxuum Xaaji Ismaan Cawad Barabara kuna anaysnaa wuxuu ahaa oday weyn oo reer Burco oo tiirarkii waaweyn reer Burco ah dadkii magaalada taariikhda ku lahaa ganacsatada ahaa baayac mushtarka ahaa kamid ahaa dadka farakuturiska ah ee xoogooda aaminay ee shaqada aaminay in badan oo bulshada reer Burco ahina ay ku daydeen oo ay wadiiqadii u raaceen wuxuu ahaa nin odaya oo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha iyo walaaltinimada intaba ka shaqeeya qofka uu yahay Xaaji Ismaan Cawad marxuumkaasi Ilaahay ha u naxariistee waxa inaga filan sida loo soo maaragtay aaskiisa loo soo camiray ee dadku uga yimaadeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.